magaalada Baydhabo xarunta maamulka Koonfur Galbeed saakay waxay ku waabariisatay xaalad bandow. waxaa la arkayaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed oo howlgallo adag ka wada gudaha magaalada. guud ahaan waxaa la xiray goobaha ganacsiga, waxaa sidoo kale taagan oo aan shaqaynayn isku socodka dadka iyo gaadiidka. sidoo kale ma jirto cid aaday waxbarasho oo guud ahaantood waxaa la arkayaa in dhaqdhaqaaqa la xayiray sababo la xiriira arrimaha amniga. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a magaalada Baydhabo oo ay ka socoto munaasabadda caleemasaarka bandow lagu soo rogay magaalada Baydhabo, xiisad ka taagan duleedka magaalada Baydhabo oo isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare. hadda maxaa ka soconaya gudaha magaalada Baydhabo? xaaladdu waa sidee? barnaamijka xulashada wararka ayaan idinku haynaa. fadlan daawada haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada ku soo biir channelkana subscribe noo saar, muuqaalka like gare oo share gare. aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. saacadihii lasoo dhaafay waxaa ku qulqulayay wufuud kala duwan oo ka kala timid qaybaha kala duwan ee dalka, khaasatan magaalada caasimadda ah iyo weliba qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka, kuwaasi oo siyaabo kala duwan loogu soo dhaweynayay gudaha magaalada Baydhabo si ay uga qayb galaan munaasabadda caleemasaarka Sheekh Aadan Maxamed Aadan Madoobe. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada birmadka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay wadaan dadaal xoogan oo ay uga hortagayaan ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare ee jooga duleedka magaalada Baydhabo si aysan u qashqashaadin ama aysan u soo weerarin magaalada Baydhabo oo ay munaasabadu ka socoto. wufuud culusna ay ku sugan tahay oo gaarayay maalmihii ugu dambeeyay. sidoo kale magaalada waxaa ka jira bandow culus oo lagu soo rogay dhammaan dadka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada, kuwaasi oo lagu xakamaynayo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha maadaama munaasabadda caleemasaarka ay ka socoto ama ay ka jirto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaanu ka wareysan doonaa oo si toos ah khadka telefoonka ugu jira ee magaalada Baydhabo Cabdijamaal oo haya xogihii ugu dambeeyay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, khaasatan magaalada Baydhabo. Cabdijamaal, soo dhawow, bal waxaad ka warantaa wararkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo. waa sidee xaaladda hadda, maxaa soconaya? aad baad u mahadsan tahay. magaalada Baydhabo xarunta maamulka Koonfur Galbeed saakay waxay ku waabariisatay xaalad bandow. waxaa la arkayaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed oo howlgallo adag ka wada gudaha magaalada. guud ahaan waxaa la xiray goobaha ganacsiga, waxaa sidoo kale taagan oo aan shaqaynayn isku socodka dadka iyo gaadiidka. sidoo kale ma jirto cid aaday waxbarasho oo guud ahaantood waxaa la arkayaa in dhaqdhaqaaqa la xayiray sababo la xiriira arrimaha amniga. ciidamada dowladda ayaa la daadiyey aeroboortka Shaati Gaduud ilaa iyo gudaha magaalada. waxaa sidoo kale aad magaalada u yaala maantay oo ka bedelan sidii hore checkpointyo badan oo ammaanka lagu sugayo. xataa qofka shakhsiga ee doonaya inuu dhex maro magaalada wuxuu marayaa baaritaano adag oo u muuqda in guud ahaan looga gaashaamanayo inay xaalad amni ay ka dhacdo magaalada Baydhabo gudaheeda. bal ka waran isku socodka dadka iyo magaalada waa sidee? suuqyaduse ma furan yihiin mise waa xiran yihiin? isku socodka dadka iyo gaadiidku waa xiran yahay oo wax shaqaynaya ma lahan. dadkana horaa loogu sii wargeliyey oo maalintii shalay ayaa loo sheegay in aysan berrito dhaqdhaqaaq jirin. sidaas daraaddeed meelo yaryar ayaad arkaysaa oo ganacsiya oo khudaartii iyo waxaa laga iibsanayo iyo hilibka meelaha la keenayay. laakiin suuqii weynaa ee magaalada Baydhabo ma shaqaynaya hadda. laakiin waxaa loo sheegay dadka inuu yahay waxa uu xiraan doonto waqti kooban, oo waqtigaa kooban hadduu dhammaado kadib la furi doono magaalada 4 subaxnimo. wixii ka dambeeyay ayay xafladdu bilaaban doontaa. qorshuhuna wuxuu yahay in xilliga duhuradii lasoo gabagabeeyo, waayo sida la og yahay madaxda qaarkood ka qaybgelayaan hore ayay usii joogeen ilaa hal maalin oo maalintii shalay ayay qaarkood tageen, qaaraa daraa tegey. garaan mas-uuliyiinta kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo wasiiro iyo xildhibaano ah. siyaasiyiin kale ayaa daraa sii tagtay, kuwaa shala tegey. maantana waxaa tegi doona madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa rajo badan laga qabaa inay halkaasi yimaadaan madax kala duwan oo ka socota diblomaasiyiinta caalamiga ee dalalka dibadda u jooga dalkeena Soomaaliya. ciidamada dowladda ciidanka Koonfur Galbeed dhaqdhaqaaqyo ayay wadeen. maxaan kala socnaa howlgalladii ugu dambeeyay ee ay wadeen
ciidankii cabdicasiis xasan maxamed lafta garanse maxaan war ka haynaa ma laga yaabaa inay maaragtay arbushaad ay ku sameeyaan munaasabadda caleemasaarka? ciidanku waxay wadaan howlgal laba jaha ah. waa midka koowaade howlgalka koowaad waxay ka wadaan banaanka magaalada oo waxay iska ilaalinayaan halkaas in hoobiyaal iyo hub iyo farsamo ay kusoo gudbi karaan ciidanka lafta gareen ay sameeyaan ayay iska jiraan. howlgalka labaad jirana waxa waaye waa midka magaalada gudaheeda ka jira oo aan la ogoleyn wax dhaqdhaqaaqa oo maantaba si weyn loo dareemayo in ay dadka xayiraad xoogan loogu soo rogay sababo la xiriira awgeed xaaladda ka jirta gudaha magaalada ee caleemasaarka la xiriirta. dhanka kale arrinta la xiriirta ciidanka lafta gareen ka amar qaadanayay haddii aysan wax kale isbedelin hadda inta subaxnimo waxaa la xaqiijiyey in ciidamadu goob kasta oo suurtagal ahayd inay isku dayaan inay kasoo gudbaan in ciidamada dowladda isku gadaameen, laakiin haddana wax walba filo ayaa la oran karaa oo xilligii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tegey magaalada baydhabo xilligii jibriil ay u dhiibayeen xilka hogaamiyaha kumeel gaarka ee koonfur galbeed laga dhigayay aeroboortka isagoo jooga ayaa lagu soo garaacay madaafiic kadibna halkaas ayaa laga qaaday madaxweynaha. marka wax walbaa la filo karaa, laakiin haddana waxaa jira taxadar badan oo ay sameynayaan ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya. munaasabadda caleemasaarka madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa maxaan ka ognahay? yaa imaanaya, yaa ka qaybgalaya, yaase ka qaybgalayna? xafladda ilaa iyo hadda caleemasaarka dadka lasii xaqiijiyay inay ka qaybgalayaan waxaa kamid ah hogaamiyaha dowlad goboleedka waqooyi bari cabdulqaadir oo cali firdhiye, isaga iyo wafdi uu hogaaminayo waa goobjoog. sidoo kale waxaa goobjooga madaxweynaha ama hogaamiyaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen. wararka qaar ayaa sheegayay in axmed cabdikaariyo qorqoor oo maalmihii ugu dambeeyey laakiin soo gaaray maalintii shalay magaalada muqdisho ayaa la filayay inuu qeyb ka noqdo hogaamiyaasha ka qeybgeli doona caleemasaarka, laakiin sida muuqato xogta la helayo waxay muujinaysaa inuu jiro cudurdaar, inkastoo weli ay suurtagal tahay inuu isbedel ku yimaado oo maantaba uu kamid noqdo dadka halkaasi tegaya. dadka kale ee halkaas ku sugan oo hadda goobjooga waxaa kamid ah siyaasiyiin hore oo kasoo shaqeeyay xelal kala duwana kasoo qabtay dalka soomaaliya, iyo sidoo kale madax horey xelal kala duwan uga soo qabatay deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed. xildhibaano iyo wasiiro ayaa goobjooga. madax sare oo ka tirsan dowladda federaalkana maanta ayaa la filayaa. waxaa la sugayay inuu halkani ay soo gaaraan maantay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha, laakiin lama oga labadooduba inay wada imaan doonaan. waxaa suurtagala inuu madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya u yimaado oo uusan ra-iisul wasaaruhu imaan, ama ra-iisul wasaaruhu tago oo uusan madaxweynuhu tegin. marka waxaan eegi doonaa mas-uul midka halkaasi tegi doono. midda kaleo xusid mudan waxay tahay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa joogta magaalada baydhabo. waa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad muddooyinkan dambese ahayd guddoomiyaha kumeel gaarka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya. sacdiye yaasiin way joogtaa magaalada baydhabo. waxaa kaloo jooga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare shacbaan. marka cali shacbaan iyo labadii gole ee sharci dejintuna waa joogaan, mas-uuliyiinta kalena way ku sugan yihiin halkaas. sideeba dadka reer koonfur galbeed ay u arkaan munaasabadan caleemasaarka ah? dadku waa 3 qaybood oo koonfur galbeed marka laga hadlayo arrintan. qayb kamid a waa dadka shacabka oo iyagu doonaya ciddii maamuleeba ha maamushee inay helaan xaalad amni, xaalad horumarka deegaankooda looga shaqeynayo, xaalad ay u awoodayaan ilmahooda waxbarashada u dirsadaan, ganacsigoodana ay furtaan. kuwaas waxay u arkayaan inay tahay arrin wanaagsan in magaalada baydhabo ay doorashadii ka dhacday oo codkooda ay kusoo saarteen hogaanka maanta la caleema saarayo wax wanaagsan ayay u arkaan. dhanka kale siyaasiyiinta koonfur galbeed oo qeybta labaad yihi iyagu kuma qanacsana siday wax u dhaceen. waxay aaminsan yihiin in deegaankoodii laga gacan maroojiyey, shaqada madoobe xoog lagu keenay, dowladda federaalkuna ay arrintaas ay ka shaqeyday. qeybta saddexaadna waa ciidamada lafta gareen iyo abaabulka ka socda duleedka magaalada baydhabo, kuwaasoo iyagu amni ahaanba u doonaya in qaliyaan tillaabo kasta oo halkaas maamulka koonfur galbeed ay qaadi lahaayeen. ciidanka cabdicasiis lafta gareen duleedka magaalada baydhabo ayay joogaan. ilaa iyo hadda intii waagu bariyey tallaabo ah ay qaadeen ma jirtaa? maya, ilaa iyo hadda waxa ay tallaabo qaadeen inkastoo xilli hore tahay oo aan la ogaa karin waxa ay sameeyeen ilaa iyo hadda ma jirto.
ciidamada dowladda ayaana isku gadaamay, laakiin cabsi ayaa jirta mar walba ay suurtagal tahay in xilliyada halista ah ay isticmaalaan hub la sheegay in dhinaca imaaraadka oo kasoo gaaray lana keeno duleedka magaalada baydhabo. hub halis badan inay helaan ayaa la sheegay, suurtagalna ay tahay inay tillaabooyin qaadaan, laakiin hadda waa xilli hore oo subax ah, marka aan sugno haddii ay u suurto gasho siday u duqeyn jireen aeroboortkana waa arkaynaa, haddii ay taas laga hortagana waa arrin loo joogo. laakiin arrinta xusinta mudana waxay tahay ciidanka laftigreen mar walba waa ka duwan yihiin ciidan caadi ah, mar walba waa ka xog ogaansan yihiin. normally dadka wax laga filan karo waxaan ahayn ayaa laga filan karaa. tusaale ahaan oo kale waa niman yaqaana deegaanka, waa niman ay u cabiran yihiin aeroboortka iyo jahaad ay ka jiro iyo goobta caleemasaarku ka dhacayo, saacad kasta iyo waqti kasta ayayna qaadi karaan xanuun badan, taasi oo aan la mahadin, xanuun badanna laga dhaxlo. marka waa wax walba filo, laakiin xaaladda ayaa la qiimeynayaa bal sida ay noqoto iyo sida ay u suurto gashay inay si nabdoon ay halkaas wax uga qabsoomaan. laakiin maamulka iyagu waxay isku dayayaan inay si nabada iyo xafladda ugu qabsoonto.